السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يرسل دوادا halkaan naga dheehanaysaan waa bartaan Facebook ku leenahay ee Nuno Qofle page sidoo kale waxaad muuqaalkan ka daawan kartaan barteena YouTube-ka ee maskax ku bixiyo official maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay dhacdo naxdin badan oo adduunka laga hadlayo dhacdatan waxay ka dhacday dalka Brazil ninkan aad u jeedaan waxa lagu magacaabaa Giovanni Gentella waa 32 jir u dhashay dalka Brazil waxa uu faraxumeeyay haweeney xaamilo ahayd oo xisbitaalka uu ka shaqeynayay loo keenay si looga umuliyo balse sida muuqaalka ka muuqata waxa uu kula kacay tacadi dhanka jinsiga ah xubintiisa taranka ayuu gelinayaa afkeeda iyadoo kooma ku jira maadaama qalin lagu sameynayo si loo kala badbaadiyo ilmaha iyo bukaanka Giovanni awal ayaa shaki laga qabay inuu bukaanka dhaqan xumo ku sameeyo oo hadda ka hor haweeney sidaan oo kale loo keenay xisbitaalka oo ku jira qolka qaliinka ayuu dhammaan dadkii ku amray inay banaanka uga baxaan qolkan qaliinka waxaana la filayaa kiiskan inay ka horeeyeen kiisas badan si loo xaqiijiyo qolkii uu qaliinka ku gali lahaa ayaa loogu diyaariyay qof muuqaalka duuba haddii tacadi uu ku bilaabo bukaankiisa booliska ayaa baaritaan uu sameeyay ku xaqiijiyay dhakhtarka Giovanni inuu 40 dumar ah uu ku sameeyay xadgudub dhanka jinsiga mid ka mid ah haweenka uu dhibkan u geystay ayaa ka warbixisay dhacdadii ay kala kulantay dhakhtarkan waxay tiri waxaan ahaa xaamilo waxaan ay qabatay fool waxa la geeyay dhakhtarkii uu ka shaqeynayay dhakhtarkaas lagu magacaabo Giovanni kadib waxa la geliyay qolka qaliinka anigu waxa maan ogeyn balse waxaan dareensanaa inuu ninkani uu wado dhaqan xumo dhanka jinsiga ah waxaan waday laba mataan ah dhaqan xumadaas iyo kufsigaas uu ii geystay awgiis waxa halkaas ku geeriyooday ama ku dhintay mid kamid ah mataanihii aan waday ugu dambeyn ninkan waxa loo taxaabay xabsiga waxaana lagala noqday laysinkii dhakhtarnimo sidoo kale waxa la baarayaa inuu geystay kiisas aad iyo aad u badan oo ka badan 40 kiis ee la xaqiijiyay fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar siina share